ugaas cabdiqaadir xaaji faarax xaaji cilmi oo ka mid ah bahda dhaqanka iyo aqoon-yahanka somalilan ayaa ka hadlay xaaladda amni ee somalilan ay ku sugan tahay gaar ahaan xiisada dagaal ee ka jirta magaalada laascaanood ugaaska ayaa sharaxaad ka bixiyey qodobo uu sheegay in ay dab ku sii kicin karaan xaaladda dana shisheeye oo qayb ka noqon kara iyo midda dhaqan dhaqaale bulsheed iyo talooyin uu u arko xalka rasmiga ah وانا كان اوغاسك او قدبدن iyo kuwa kale ka hadlaya bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam marka hore aad baan kuugu mahadnaqayaa fahmiyo adigiyo bulsho TV ba iyo dhamaan dadka daawan doona falanqada yar ee insha Allah lagu tala galay inaan ku eegno arrimaha laascaanood deeruud sida la socoto waxa uu fahmiyo dalku xaalad dagaal buu ku jira dagaal sokaya socda gobol kamida goboladii ugu waaweynaa ee dalka oo gobolka Sool ah ayaa runtii gubanaya marka waxa weeye xaalad horta nabadgelyadu waa sidaas runtii dalka inta kale wax kale oo shaqaaqo weyn kama inaan maqal alxamdulillah laakiin waxa weeye arintaas un baa imaka inoogu dambeysay nabadgelyada saameyn weyn ku leh aad iyo aadna run ahaantii Cabdiqaadir Faarax Cilmi waxaan doonayaa inaan tacsiin u diro dhammaan dadkii ku waxyeeloobay haddii ay yihiin intii ku dhimatayna ilaahay naxariisto labada dhinacba haddii ay yihiin intii ku dhaawacantayna in ilaahay shaafiyo dhammaanna waxa weeye ehelkii iyo qaraabadii iyo cid kasta waxa weeye Soomaalinimadu ay taabanayso ama Somaliland loo arrinta ka damqanaysa tacsidaasna la wadaagaya insha Allah saameyn taban bay ku yeelanaysaa oo fahmiyo waad fahmi karaysaa laakiin aan lababa u kala qaadin waxa weeye waxay noqon kartaa midaynu indheena ku arki karno inagu maanta marxaati ka noqon karno iyo mid aan arki karin matalinta waxa weeye physicalka indheena ku arki karno ama waxyeelada waxa kamid ah dhimashadii waxa kamid ah dhaawacii waxa kamid ah burburkii hadii beedkeed ku leeyahay waxa kamid ah hadii beedkeed ku leeyahay dhaqaale burburka soconaya oo waa dhiigbax waxa kamid ah waxa loo yaqaan hadii beedkeed ku leeyahay wada jirkii bulshada oo dhaawac soo gaalayo mar hadii dagaal sokeeyo dhaco dagaalku sida way qorraxda u dhalaaliso burcadka ayuu bulshada had iyo jeer u kala furfuraa saameyn buu ku yeeshaa qalbiyadoodu taabta marka kala fogaansho bulsho wuu keenaya wuxuu kale keenaya waxa loo yaqaano dhaawac baa ku imanaya dibadda Soomaaliland trademark baa loo yaqaana Soomaaliland waxa weeye dhaawac baa ku imanayo magaceedii guud siyaalo badan buu saameynaya waxa weeye kulliba oran mayno maanta waxa weeye faa'iido laga helaya laakiin si taban buu magacaana waadiyadu sidii ay ku arkaysay si aan ahayn baad maanta markii dagaalku uu bilowday lagu arkay Soomaaliland waxay nolosha la wadaagtaa waxa weeye mantiqada geeska Afrika iyo caalamka haayo waxa weeye khataradii dibadii way jiraan already waxa baad aragtaa waxa weeye social media markaad maanta eegto oo ah meelaha dagaalku ka socdo laga boonbooninayo halka la marinayo waad aragtaa in ilaa isir la gaarsiinayo waxa weeye waxyaalo badan oo aan mararka qaarkood run ahayn waxa weeye la sheegayo kicina taasi waxa weeye nabadgelyada waxa weeye sheegaysaa waxa leedahay waxbay u dhimaysaa oo waxa weeye social media maanta waa dagaal khatara bulshada Soomaaliland weyn ka digtoonaata waxa weeye waxyeeladiisa isna ururisa had iyo jeer waxa kale oo iyaduna jirta in dagaalka isirahaan loo rogo laftiisu waa khatar nabadgelyada waxa weeye ku soo socota ama ku iman karta oo haddii isir loo rogo waxa weeye dagaalku wuxuu noqonayaa midaan meelna dhaafin oo waxa weeye meel kasta galay ilaahay nagu keenay waxa kale oo dhici karta waxa weeye fargelisheeye bay nagu iman karta oo nabadgelyada wax yeesha oo hadii beedkeed ku leeyahay markii iskansan weynay hawsha ay Soomaaliland iyo Soomaaliland gudaheeda ay dhamay kar weydo ama Soomaaliya ay dhamay kar waayaan xukuumadda Soomaaliland in caalamku fargelin sameeyo ayaa iman karaysa waxa imanaysa hadii beedkeed ku leeyahay waxyaalaha soo dhabaadee waxaan leeyahay xabad joojintaas markii horeba horta hal dhinac bay haydo xukuumaddu iyada go'aan ka qaato go'aan wanaagsan buu ahaa laakiin anigu markaan eego Cabdi Faarax ahaan arrimaha ay u hirgeli weydo waxa kamid horta kaliya kumay filayn inay xukuumaddu qaato go'aan ah anagu xabad joojin baanu sameynay laakiin waxa ku sii haboonayd inay xukuumaddeenu waxa weeye ku dhac yeelato ciidamada meesha ka saarto waayo conditionkii ay ku xireen garaad haddii bedkeeda ku leeyahay garaadadu ay ku xireen oo waxa weeye hoggaanka maanta waxa weeye dagaalka qaybta ka ah Sool waxa hay'adda ciidamada dib loo kala qaado meel aan soo gaaraynin la geeyo taas Soomaaliland kumay dhaqmin
oo dee taamay samaynin marka laba ciidan oo isu muuqda dee waxa weeye aad baad garan karaysaa inaan xabad joojin dhacaynin waxa kale oo iyaduna jirta waxa weeye waxa muuqda had iyo jeer ama siyaasadda ka yar muuqda waxoogaa geedka kaca waxa weeye labada dhinacba ay mid kastaaba uu ka kala ku eedayn inuu isaga bilaabay laakiin waxa weeye si rasmi ah aysan Soomaaliland wali uga go'in in waxa weeye xabadda la joojiyo dareenka bulshada Soomaaliland waxa weeye kuma faraxsana bulshada Soomaaliland dagaalkan inuu socdo waayo de horay u soo arkeen waxan marka waxa weeye walba ka muuqda qof kasto waxa weeye aqal loo Soomaaliland wuxuu ilaahay ka baryay dagaalkan inuu istaago xukuumadda wuxuu ku dhiirigeliyay in la joojiyo wadiga arkay qaylada iyo hadii bedelkeeda ku leeyahay baaqyada yeedhaya marka Soomaaliland dagaalkan waxa weeye ilaahay bay ka baryay inuu iska taago waa masiibo qaran oo ay arkaan ها way jiraan dagaalo horta Soomaaliland markaynu eegno mandiqadan aynu ku noolahay runtii waxa weeye daan waxaan anigu koolan karaaba magaalo Soomaaliland oo weynaan dagaal sokaya ka dhicin baa yari waad la socotaa waxa weeye goor intii dalka la soo galay waxa weeye dalka SNM ku soo noqotay aynu xornimada la soo noqonayba ama ay Soomaaliland tidii xornimada waa la soo noqonayba dagaalku Ceerigaabo ka dhacay Berberu ka dhacay Burco ka dhacay haddana kii weynaa Maryaaloolka geeska Afrika kuwa ugu khatarsan ee ugu adag dad isku isirhi iskaga hor yimaadaan baa dhacay hadii bedelkeed kulay waxa soo dhan baa dhacay kan laas calood baa maanta ku xiga marka waxa loo karaaba booraba uun baan dagaal toosa oo xukuumadda iyo waxa weeye qabaailahay aysan ka dhicin baan dalool anigu oran karaa sida loo xaliyay waxa weeye inta badan waxa xaliyay odayada beelaha waxa xalin jiray ka ugu dambeeyay ugu weynaa marka macaala barbar dhigo kii ka dhacay Muqdisho hadii bedelkeed ku leeyahay aydiidiyo ilaahay u naxariistay Ali Mahdi dee dhexmari jiray ama kii Araare ama kii Cabdullaahi Yuusuf ama kii Gaalkacay waxay doonaan ba ugu yeedheen dagaalka ka adagoo geeska Afrika dad isku isirhi ay iskaga hor yimaadaan khasaarihiisa lama arag dee kaana odayaalun baa xaliyo waad garanaysaa waxa weeye shirkii duruqsi ilaa iyo kii beereed tayaga gutiga dhusha iskaga dhigay waxa weeye xaliyo dadkooda gartay u daniyay dawlad u xalisay dabada ha ka riixdo taa kula hayso laakiin dawlad si toos ah u xalisay ma aragtay horta daniyow ilaahay isaga amuraha soo afjara waxa weeye dagaalka laascaanood anu markaan eegay dhowr siyood tiraba afar nooc ama afar siyood baan ilaahdee ayuunbu u dhici karay anu markaan eegay ee aan ablaableeyay dawaamida horta waxa weeye wuxuu ku soo afjarmi karaya koow iyadoo hadii bedelkeeda ku leeyahay de Soomaaliland waxa weeye ay qabsatay gobolka hadda waa tusaale Soomaaliland waxa weeye iyadu waxa weeye dhinaca kale intay muquunisay qabsatay gobolka ilaa tukaraq fadhiisatay muu soo afjareen laakiin waxay noqon lahayd waxa weeye hadii bedelkeeda ku leeyahay scenario ama waxa weeye dhinac bayna waxay noqon lahayd qayb kamida soo afjarida dagaalka taasi suurtagal maaha aad bay u yar tahay inay Soomaaliland iyadu kaligeed wax maarayso oo dawladnimo xoog wax ku maarayso talabaadna waa SCO de soo jiida oo waxa weeye intay soo xaqdo Soomaaliland rampage baa la yiraahdaa afka qalaad de waxa weeye ilaa iyo halkay sheegayaan ay leeyihiin wax xuduud de gobolka hadii bedelkeed kale og keena taasuna iyada sida taa hore kale bay aad baciid u tahay oo suurtagal maaha waxa saddexaad oo la isugu iman karaa waxa weeye oo u dhici kara waxa weeye inay meeshu faro noqoto la kala awood weynaan waayo laascaanood ay noqoto faran dagaalo sanad iyo 2 sano iyo hadii ilaahay ka dhigo waxa weeye wax leegba u dagaal ku socdo taasuna waa qaybta saddexaad mid afraad baa jirto iyadoo Soomaaliland waxa weeye ku dhiirata inay ciidamadeeda dib uga soo baxdo oo hadii bedelkeed ku leeyahay gogashii markii hore ay fidisay halka dhinac ee iyadu go'aan ka qaadato runtii go'aan aad u wanaagsan inay ku darto oo ay dib uga soo baxdo waxa weeye meel aan ciidamadu iska gaalayn hadhowto Soomaaliland waxay noqon lahayd hadii bedelkeed ku leeyahay wax la yiraahdo Soomaaliland hawsha way samaysay xitaa hadii dagaalku istaagi waayo inkastoo de militarily ay ku xisaabtamayaan laga yaabay Soomaaliland waxa weeye ciidankoodu kala go'o ama uu kala durko haddana de waxay wax loo yaqaano political gesture waxa loo yaqaan ama tulaale siyaasadeed dalka ka muuqda dhaqaalaha Soomaaliland de waxa weeye dagaalkan laascaanood markaynu u eegno dhaqaalaha Soomaaliland saameynta ku yeelan doona waxaynu ka hadlaynaa waxa weeye
haddii badankeed ku leeyahay dagaalkanu saamaynta uu ku yeelanayo dhinac bulshada dhinac dhaqaale be horta dhaqaale ahaan dee marka horeba waxaynu nahay dal aan dhaqaale badan lahayn waad ogtahayo waxa weeye dalka 180aad baa Somaliland lagu tiriyo ama Soomaaliya bade waa dal yani aad u faqiira inkamkiisu waxa weeye haddii badankeed ku leeyahay waxaan dee waxa weeye $2 iyo $1 ka badnayn waxa weeye haddii badankeed ku leeyahay maalintii GB ahaan marka dalkeena la eego wax soo saarkiisa 7.2 ilaa 7. haddii badankeed ku leeyahay 1 milyan bilyan baa lagu qiyaasaa 7.2 bilyan meelaha waa waxa loo yaqaan GDP de lagu cabiro waxa weeye wax soo saarka dalka yani waa wax aad u yarde markaad eegto inkastoo population-keenu yar yahay haddana waxa weeye taalafteedu waa wax yar okay waxa inta raaco aad ku sii darsanaysaa dhaqaalahan Somaliland 95% iyo waxa ka sareeya waxay quudataa ama consumer goods wax loo yaqaan way la soo digtaa yani wax soo saarkeeda wuu yar yahay hadduu jiro waxa weeye waxa xagga iyadu waxa weeye wax ka heshaa waxa weeye waxa loo yaqaano xoolaha iyo haddii badankeed ku leeyahay lacagahan dadku dibadda ka soo diray remittanceska iyo waxa loo yaqaano haddii badankeed ku leeyahay beeraha iyo waxyaalaha noocaas markaynu eegno xagga haddii badankeed ku leeyahay waxa loo yaqaano budgetka dawladda Somaliland oo kale bitana sanadkii 2021 400 milyan buha waxaa la sheegay inuu ilaa 4% ama 5% korayo okay haddii marka aad eegto waxa weeye budgetkaas dee marka dagaal uu ku socdo muddo 10 bilood markaad ka soo qaado 10 bilood haddii marka dagaal ku socdo budgetkaas Somaliland waxa suurtagal ah ama waxay noqonaysaa ablaablaytu in lacag 54 milyan oo dollar 10 bilood ay meesha ka baxdo waxa weeye la isticmaalo taasoo macnaheedu noqonaysa ilaa 13% qiyaastii markaad eegto يعني marka waxa weeye dawladdu laguma talagelin oo lacag ay dagaalo meel sii dhigtay waxa weeye lawan iska garanayna waxa weeye dawladaha aynu halkan doonay Somaliland awoodda uma hayno marka waad garan karaysaa calaamadaha dhaqaalaheena ka muuqda inuu san diyaar u ahayn inuu dagaal xamilo waliba waxa inta ku sii dheer wadamada had iyo jeer lagu sheego 8% corruption ka marka la eegayo 8% wadamada corruption ka had iyo jeer lagu sheego baynu nahay runtii markaad waxa soo dhan eegto de waxa weeye waxaad arkaysaa in dhaqaalaha calaamadaheena ka muuqda inuu san diyaar u ahayn inuu dagaal xamilo ama liqo muddo inta dheer taas marka waxa weeye de waa saameyn weyn oo taban dhaqaalu marka waxa weeye de dhaqaal burbur bayna ugu dhacay waxa kale oo doonay maraysa in businesskii iyo isu socodkii iyo ganacsigii dadka dhexdiisu de istaagaan taasina dad badan bay saameyn ku yeelanaysaa waxay la tahay inaasunba imika talaabooyin la qaadi karaa mar haddii dagaalkii soconayo horta ma jirto oo waxa weeye already dee dhiig buxu u socda ilaahay inaga nabadgeliye waanaynu ka hadalnay inflation kuna ama sixir balarkuna 7% buu maraya oo cost of living dadka waxa weeye waynu maanta waynu garan karaynaa dee adiga laftaada ka mid ah bulshadii oo aqoonyahana okay waxa arrimahaasi dee lagu xallin karaa haddii matalan ilaahayba uu nabad keeno dee ay nabad noqoto dhaqaalaha Somaliland baan dee maxaa u wanaagsan uu ku kobci karayaa inaad weydiinayso ma dee u qaatay horta marka ugu horeysa waxa weeye adduunyada dhan waxay isku raacsan tahay wax kasta inuu ka horeeyo wax loo yaqaano anti corruption ku markuu dalka ka yaraado xitaa dalka haddii wax soo saarkiisu iska yar yahay haddii waxa weeye si wanaagsan loo dhaqaaleeyo oo wax istaba-marinta dalku ay aad u yaraato dhaqaaluhu iska koraa waa fenomena caalami oo la isku raacsan yahay Somaliland waxa weeye dhaqaalaha waxyaalo kale koori kara waxa weeye mustaqbalka in la sameeyo horta waxa weeye transparent ka aan ku sheegay oo corruption la dagaalamo labo shaqo abuurid iyo maalgelin in la helo oo maalgelintuna hadda ku xisaabtano way sii duushaa marka dagaaladu dhacaan oo wixii aad filaysay waa lagaala noqonaya iminka waxa markhaati kaaga taade waxa weeye uu Mareykanku ka noqday berbera oo deyn wax weyn inuu soo kordhin lahay okay suuq xora isaguna waa muhiimtay oo waxa weeye Somaliland maanta waxa ka sii dabar go'ay aad aragtaa suuqii xorta halka uu dhaqaalaha had iyo jeer kaga jira waa muhiim waa arin had iyo jeer waxa weeye dhaqaalaha Somaliland caawin lahayd waxa kale oo iyaduna waxa weeye muhiim oo jirta waxa loo yaqaano
allocation of resource يعني إن دقالها هدي بيدك كده كله هي سي إسلاج دي أمد الله وقاي بيو أنتي كوربشن كيسو جلسة مركا الرماهاس بمهمة أو وحوي دي دقالها دلك وحوي كبعين كرتا إن له لما الجلين شقابور للصمايو كوربشن كلا دقالمو هدي بيدك كده كله هي the good management للي مادو ليو أرتساش دتكو إن بدبي ويديانو أد بلي ويديان لكن هرترنتي ده ماذا حل قامات كل leadership كون بيكمته وقيب leader وسوشيال leadership كنا ده وح علميا هو ده الدكتور دكتي وحوي فائدة دي سيء مهمة ده ومده وجره هذا يصير جود وجره بس أشها وحابن كله كلا وحوي دولتها أنا إنه أركينه ملتريات أنا إنه أركينه هذا بيد كده كله هي ضمان بلشوا يمكن organization هذا إنه أركينه بلشوا بيوديجيه بلشوا وحلا يلعبون بيوديجيه مرشد الله عيدون تهنقته مركا هذا يشير وحوي أقوياهنك إن هذا مدح لقميتك كم من نقطة أنا وحنا أركا إن هذا قوانت هذا الدتك جوجا فائدة تلمانهان يتعلينهان لوجا فائدة كوسا حظ وحقوق ملا ودراسته وجو قرشيسو هدي بيدك كده كله كوقابته كوهجته درسوناجا كوسمايسو وحيالها صورني أنا قوانت إني كابا سبعان أركا لكن ما أنا أمسني وكمد ما هي الدتك هذا يشير إلى حوي قف كل واحد متعلم محوك الضوء مدح لقميتك bulshadu way loo baahan tahay tacliinteenuna hadayna bulshada looga faa'iideyn de tacliin la'aan qolmayso macnaheedu waxa marka aad ku biirto madax qalameedka de adiga tii aad tacliintaada kaliya uga faa'iideysanaysay ee individual interest-kaaga aad adigu ka helaysay baad de ka gudbaysaa waxa weeye waxaad u gudbaysaa dan guud marka waxa weeye taas ay ugu kaliftay inaan ummadeeda wax faa'iideeyo oo waxaan isii waxa weeye meelo badan aad gufayn karayso oo qabyo aba jira arrimo kale runtii waxa weeye imika halkan ayna ka geeyoonida daway jiraan oo igu dhiiri galiyay oo waxa weeye anigoo waxaan iska marka horeba jeclaa iyo xilliyadii doorashada oo adigu waxa weeye ay arrintaas waxa weeye markii dambe la ahaan igu soo kacday oo aan u arkay in imika aan ka midho dhalin karo waana ka midho dhalin insha Allah arrimaha bulshada siyaasadda dhaqaalaha nabadgelyada intuba waynu ka soo hadalnay wana xusnay wuxuu yahay intaan soo xusnay iyo dhaqanka xidhiidhka ka dhexeeya dhaqanku horta marka hore waxa weeye horta de waa qayb ballaaran oo cilmi ah waa social science ka mid ah dhaqanku markaynu cilmi ahaan u baranayno dhaqan waxa la yiraahdaa waxa weeye say bulsho u nooshahay bulsho sida u nooshahay baa dhaqan la yiraahdaa horta ereyga saasa marka hore tacbiirintiisu ay tahay mar haddii sida bulsho ay u nooshahayba uu dhaqanku yahay oo tusaalan kaaga soo qaadaya matalan say bulshada wax u xalisato marka ay isqabato sida iyadu waxa weeye wax u kala qaadato sida matalan waxa weeye haddii beedkeeda ku leeyahay barka ay doonayso inay haddii beedkeeda ku leeyahay isu marti soorto haddii beedkeeda ku leeyahay xilliyada waxa weeye marriage ko kale sida wadooyinkay u marto haddii beedkeeda ku leeyahay birmageydadoo kale sida ay ka yeesho waxyaalahaas oo dhani de waxaynu dheeli samayno ama aynu hore u samaynay ama aynu ku dardaaranay inaynu samayno waa sida aynu u noolahay marka waxa weeye maadaama dhaqanku yahay sida bulsho u nooshahay dhaqaalihii inuu ku xidhan yahay oo waxa weeye bulshada dhaqaalaheedu sida uu hormaro waxa uu ku xidhan yahay isaga iyo ka hore dhaqankuba labaduba waxay ku xidhan yihiin siyaasadda labaduba siyaasadii ku xidhan yihiin oo had iyo jeer habka dhaqan dhaqaale ee ummadi leedahay waxa ama dumiye baabiye meesha ka saara ama daciifiya ama koriya ama xoogeeya ama haddii beedkeedu ku leeyahay dadka isku diray isla dhaca waa qaab siyaasadeedka ay ummadaasi isticmaasho qayb bay ka noqonaysaa qayb aad u muhiimsan bay ka noqonaysaa way jiraan faktarro kale laakiin waxa weeye intaba waxa lagu maamulaa lagu hagaa waa siyaasadda marka xidhiidh ka dhaxeeya waxa weeye waa kaas